الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. ويدين تحكته ما شاء الله. hablaha ayaa su-aalo badan maasha allah, waa loo baahan yahay. wiilashana way weydiiyaan, laakiin hablaha maanta badan su-aalaha waa idinku hambalyaynaya. waxbarashaday ka mid tahay, waxaada garanayn inaad weydiisid. weydiintani waxay tahay nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo nimcooyinka dalkan soomaaliya ama maxaa la yidhaahdaa dhulkan karaamaadka uu ilaahay goonidii u siiyey nabiyullaahi maxaa ka mid ah barakada oo dhulkan ilaahay goonidii u siiyey maxaa ka mid ah iyo nabiyullaahi aadam calayhi salaam xaggee buu soo caga dhigtay waanagii hore u sheegnay shaydaanka markii laga soo eriyey jannada laga soo eriyey wuxuu soo caga dhigtay yurub waddan ka mid ah ee la yidhaahdo iceland magaaladiisa demuburgir magaalo loo yaqaano ayuu soo caga dhigtay. weli waxaan sheegnay dad ka mid ah dadyowga degan yurub oo weliba iceland degan inay xusaan ilaah baan ka magan galnay. nabiyullaahi aadam calayhi salaam halkuu soo caga dhigay ee ugu horreysay exactly halkaas waaye. iminka ma odhan karo idima lihi sabab waxa weeyaan waxbaa ka horeeya, tallaabaa ka horeysa. haddaan iminka adigoo dhiganaya alif waxmaale dhiganaya aan ku yidhaahdo waid qaala liibraahiimu ku yidhi waa maanta indhaha midq ka siinaysa mooye ma fahmi kartid, waayo ma aadan gaarin. marka weli taariikhdanadii way socotaayo waan ku tegaynaa halkaasu soo caga dhigay. anaa idin oran doona oona caddayntiina idiin siin doona. waxyaalo badan calaamaad way jiraan oo ah mucjizaad oo rabbi ah oo rabbaani ah oo ilaahay sameeyey oo bini aadan uusan samayn karin inay yaalaan dalka. maalan meel iska barwaaqo ah xilliga omoska ah iyo abaaraha iska barwaaqo ah geed waan soo sheegnay. waxaa soo sheegnay meel aan biyahaba ka dhammaanin oo il ah biyaha maaragtay ka soo burqamaya oo aan dhammaanaynin oo meelyo badan ah, hal meel iyo labo meel aan ahayn, oo dhulka hareerahooda ahna abaar ay ka jirto. waxaa soo sheegnay oo kale cagtii bini aadanka ahayd ee ciddii ku dul istaagta ee la ekaanaysay waan soo sheegnay oo ay tile buur haybe. waxaan soo sheegnay nimanka cirbixiyenada ah markay gelayaan atmosferka ay doonayaan inay gaaraan si ay dhulka u sawirtaan meel kale ay ka geli karaan atmosferka ma jirto aanan ka ahayn berbere aanan ka ahayn, waayo halkaa unbaa u furan. waxa weeye access kale oo adduunyada ay ka galaan ma jirto. hadduu cape kennedy ka kaco iyo hadduu ka kaco meel kale ka kacaba yaa ma geli karo. waaye madaxdan la qaarijiyey ee sirti soomaaliya soo bandhigay oo maxaa loo khaarijiyey? waxaa jirta wiilkan wuxuu yidhi maxaa loo khaarijiyey madaxdii maraykanka ama madaxdii kale ee adduunka ahayd oo sirta soomaaliya kolkay ka hadlaan dadkoodu ay khaarijinayeen. horta mid aan horumariyo middaasoo ah weligeed adduunyadu waxaa jireen rag loo yaqaano baarayaal, suxufiyiinta baarayaasha ah, journalist investigators ayay yidhaahdaan.
nimankaasi sidaa la yidhaahdo waxay samayn jireen baaris wax walba markay dhacaan way ka daba qaadan jireen waxaan maxay u dhaceen sidee bay ku dhaceen yaa u sabab ah maxaa u sabab ah waxay soo saari jireen marka jawaabo macquul ah oo dadkii qaadan kara haddaba Hubert Humphrey wuxuu ahaa xogeeye arrimo dibadeedka dalka Mareykanka 1963 ayuu ahaa Soomaaliya buu yimid waxaan sheegnay markuu baxayay casharafta loo sameeyay khudbadii uu ku khudbadeeyay inay ahayd halkan waxay noqon doontaa sanadaha 2000 meesha adduunyada u soo doonata mustaqbalka ayuu ku khudbadeeyay waxaan sheegnay kolkuu ka degayay airportka Washington in ambulance looga qaaday waxaanan sheegin oo haddeernaan sheegaynaa sidaas si lamid ah John F Kennedy in la qaarijiyey sababtii loo qaarijiyey cid garanaysa male inta badan dadku waxay u badiyaan yahuudi buu priority siiyey kaliya maaha arrimo badan baa jirta xataa Soomaalida quseeya oo halkan wax badan buu u taray wax badan buu sameeyey John F Kennedy waxa kale oo soo sheegnay Ronald Reagan in laga masaxay xusuustiyo idil in laga masaxay waxaan soo sheegnay sidaas si lamid ah ninka la yiraahdo Ariel Sharon kooma inuu ku jiro ilaa ma alaana waxaynaan weli aanan sheegin oo haddana aan sheegaynaa milisanaabi in meeshii laga saaray sababo Soomaaliya awgeeda ah waxaan kaloo sheegaynaa weliba looga saaray marka qaabab badan bay u saaraan qaar waa la sumeeyaa way xanuunsadaan qaar ma aragtay waa shil bay ku dhintaan qaarba si bay u dhintaan waxaan kaloo sheegaynaa kii ka horreeyey ninkan Abiy Ahmed Hibil Mariam isna sidaas la mid meeshii waa laga saaray sabab waa arrin Soomaaliya ku saabsan Soomaaliya kalimaha weliba geeska dhan ku saabsan muxuu sameeyey booqasho ayuu ku tagay dalka Djibouti khudbad buu ka akhriyay baarlamaanka Djibouti wuxuu yiri inagu dhaqaale ahaan waynu midaysannahay mid qura ayaynu nahay iminka waxaa loo baahan yahay inaynu u midowno siyaasad ahaanna waa inaynu midownaa oo loo sabciyay horta baarlamaankii Djibouti way u sabciyeen anigu ma aan sabciyeen anigu iyo dad badan oo ila mid ahba uma inaan sabciyeen sababtoo ah ninkan waa nin siyaasi ah waa nin diblomaasi ah erey kasta ay afkiisa ka soo baxa waa inaad miisaantaa xataa kolka uusan khudbadaynin caadiga ah haddii aad wadda xataa ku kulantaan oo ku salaamo salaanta laftigeedu waa inaad miisaan saartaa aad qiimaysaa oo aad noocay ay tahay iyo aad qiimaysaa waa sidaa adeer dhalinyaro baraarugu hurdada ka toosa ruux siyaasi markuu ku yiraahdo dhaqaale ahaan waan midownay siyaasad ahaan aan midowno micnaheedu waxay tahay hal calan aan qaadano hal wadan aan noqono hal lacag aan samaysano oo aan samaysano maxaa la yidhaha hal baasaboor iyo hal madaxweyne sidaas wey macnaheedu anigu sidaan u qaata aniga waayo lacagtooda wayba shaqaysaa iminka lacagtii birta ahayd ee Etoobiyaanka meelayn ka shaqeyn waxa weeyaan ma jirto maanta waxay ka shaqaysaa Asmara ka shaqaysaa Djibouti ka shaqaysaa Soomaaliya ka shaqaysaa birta iminka haddaad tiraahdo sarf lacag biraan doonaya isla markaas lagu siilaa oo hal meel aan ahayn oo dhowr suuq ah weliba Muqdisho aad tagtid Boosaaso haddaad ku dhex weydiisay lacag bir baan doonayaa horaa lagaa siinaya Hargeysa haddaad timaado aad tiraahdo shilin Somaliland kan igu bedela bir horaa lagaaga bedelayaa war wax weyn baa socda hurdadan ka tooso oo baraaruga waxaan waa hurdadan ka kaca toosa dhalinyaro toos baraarugu aw aqoontaada away miyaadan war aqoon badan baad leedahay weliba caqli badan baad leedahay oo ballaadhan
caqli ballaaran baa leedahay oo ilaahay ku siiyey annaga waa ka duwannahay adduunka kale waanu ka duwannahay isirka soomaalidu la mid maaha isirada kale ee adduunka muxuusan kula mid ahayn wuxuusan kula mid ahayn wax badan oo ilaahay siiyey wuxuusan kula mid ahayn adigu waxaa tahay kii laga soo askunmay tusaale yaraan ku siinayaa si wanaagsan u dhuux hadalkayga tusaale yaraan ku siinayaa ruuxa soomaaliga haddii uu af ingiriisiga barto ee london dhexdeeda uu ku barto wuxuu ugu hadlaa kan london ku dhashay ee gaalka ah iyo isaga lama kala garanayo dhawaaqoodu laakiin afrikaantaa kale hadday si kasta u bartaan oo PhD holder xataa ay ku qaataan waa la gartaa always inuu yahay nin afrikaana aksankooda laakiin aksanka soomaalida lama garan karo waayo adigu halkii laga soo askumay baaba tahay sidaasaa lagu garan karin aabbo faransiiska kan barta ee soomaaliga ah kolkuu ku hadlaya af faransiiska iyo ninkan faransiiska ee gaalka ah lama kala garanayo labadooda dhawaaqa cid kala saari karta ma jirto haddaa qalabkaa doontid dhaxgeli lama kala saari karo war nagadaa laba nin oo faransiis oo hadlayso waa unbaad leedahay laakiin afrikaantaa kale markay ku hadlayaan senegaalka iyo nimankan reer congo iyo markay ku hadlayaan waa laga garanaya aksaankooda laga garanaya sidaasa horta asal aad ku tahay adigu waayo asalkii wax walba ka soo askunmeyn baa tahay marka adigu waad ka caqli badan tahay caqli weyn baad leedahay taasi isku brograamey bal marka hore inaad isku brograam ilaah baa ina siiyey maaha waxaad baraysid maaha waa wax eebbana siiyey eebbaa noogu manaystay alxamdu lilah waa inaynu nidhaahnaa inaguna waa inaynu nidhaahnaa alxamdu lilah haddii ayna weydiin kala jirin casharada kale soo socda ayaan si wanaagsan ugu faahfaahin doonaa insha allah laakiin kol walba mar walba goor kasta mili walba xusuusnow inaad ka caqli weyn tahay ka caqli ballaadhan tahay ee aad tahay asalkii aadanaha aad tahay ee halkan laga wada askulmay oo aadan meelnaba ka soo haajirin meelna kama aadan soo hijroonin adiga adaa laguu soo hijrooday xabashiga adigu kuu soo hijrooday tigriga kadaalika cid waliba kadaalika adigu asalkii baa tahay haddaad cafar tahay haddaad oromo tahay iyo haddaad tahay soomaaliba waa wada soomaali casharo kalena waan ku sheegay inaynu nahay wada soomaali sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu